geelu waxa uu ka mid yahay afarta maaladunya ee Soomaalidu haysashadooda ku hamiyi jireen waxa uu ahaa halbeeg ay ku cabiri jireen hodantinimada qofka iyo hantidiisa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo galabta duleedka magaalada Garowe ku booqday qaar ka mid ah xoolo dhaqatada si ugu dhiirigeliyay in ay ilaaliyaan kuna dhiiradaan dhaqashada xoolaha maadaama dhaqaalaha koowaad ee Soomaalidu yahay xoolaha nool mid ka mid ah xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ee ku sugan duleedka magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ka xog wareystay xaaladda ay ku sugan yihiin xilligan xoolo dhaqatada Soomaaliyeed is-xog wareysi iyo wada tashi kadib muwaadinkan Soomaaliyeed ee ah mulkiilaha geelan uu ra'iisul wasaaruhu booqashada ugu tagay ayaa waxa uu guddoonsiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hal ka mid ah geela uu dhaqanayo taas oo muwaadinkan uu tilmaamay in uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka warqabo xaaladda xoolo dhaqatada aad haysid iyo mas'uuliyadaada iyo shakhsiyadaada iyo xaqladkaaga aan aad ula socdo meediyaha iyo warbaahinta aan kala socdo galabtan ay tahay galabtii koowaad ee aad geelayga xiriisay ku timaad waxaan ku siiyay hal hadiyada hashan xarbi baa la yiraahdaa waa hasha geelayga yaa aan ugu jeclahay aday ku joogtaa waa tana waa xarbi baa la yiraahdaa waa mulkigaaga soo dhawow xarada geelayga aad baa u mahadsantahay Maxamed Bashiir Nuur Greek Ariel TV